guddiga oo isugu jiray xubno ka socday safarada Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika iyo Jaaliyada Soomaalida magaalada Johannesburg oo loo xil saaray dabagalka iyo xog ururinta dhibaatooyinka boobka ah ee toddobaadkan loo geystay ganacsatada Soomaalida ee ku noolaa deegaanka Soweto oo kulan ku yeeshay magaalada Johannesburg ayaa soo gudbiyay warbixin hordhac oo ku saabsan waxyaabihii u soo qabsoomay labada dhinac. guddiga oo laba qaybood ah ayaa qaybta Jaaliyada ugu horreyn kulan ka hadlay ayaa sheegay in xog ururin ku saabsan qasaaraha gaaray Soomaalida ay u tageen ilaa 5 xarumood oo la geeyay alaabihii laga soo badbaadiyay dadka rabshadaha waday. waxaa sidoo kale guddigu ay sheegeen in tageen isbitaalka magaalada Johannesburg oo ku jiraan qaar ka mid ah dhalinyarada ku soo dhaawacantay rabshadaha. waxaa guddigu ay sheegeen la sii daayay qaar ka mid ah dhalinyarada ku xirnaa xabsiga xaafadda Soweto ayadoo kuwa dhimanna wali dadaalkooda lagu jiro sida uu warbaahinta u sheegay Suldaan Ducaale oo ka mid ah guddiga. tirakoobkaasi waa socdaa waa soo tirakoobnay ilaa haddana waana soo gaarayaa tirakoobku khasaaro badan oo alxamdulillah ilaahay baa ku mahadsan dhimasho ma aanu arag dhaawac waa soo aragnay dhowr isbitaalo aan tagnay ummad Soomaaliyeed oo ku dhaawacantay dhibaatooyinkaas waa ku soo aragnay. imaam Abubakar Gacmi oo ka mid ah guddiga hawshan waday ayaa warbaahinta u sheegay in shaqadan si midnimo iyo wadajir ay u wadaan laba guddi oo ka kala socda safarada Soomaaliya iyo ganacsatada iyo culimada hawshan ay meel wanaagsan u marayso. maanta shiraan isugu nimid oo maxaan ku raadsaa safarada iyo guddiga aan ku kala qaadayna warbixin aad iyo aad ayayna safarada u amaantay guddiga howlaha ay ku howlan yihiin runtii si wanaagsanayna ay hawsha u socotaa. safaraduna waa maasanta insha Allah taala labada guddi ee ka kooban maxaan ku raahdaa Soomaalida iyo safarada oo laftooda guddi iska dhex magacaawda aad iyo aad ayaan u shaqeynaa. gudoomiyaha guddigan oo lagu magacaabo Camir Sheekh oo dhankiisa la hadlay warbaahinta ayaa ugu baaqay ganacsatadu inay san ku laaban goobihii dhawaan laga soo barakiciyay inta xal looga helayo arrimahan. waxaana sidoo kale xuseynay jirto wali cabsi la xiriirta rabshado kale inay ka dhacaan deegaanka Soweto iyo deegaanada ku dhow ka codsanayna walaalaha Soomaaliyeed inta ay hawsha socoto arintuna ka degayso inaysan ku degdegin inay dib ugu laabtaan tukaamadii. sideedda waxaa la iclaamay inuu jiri doono strike dalkoo dhan ay sugaan insha Allah wixii ka damban aan ka wada hadalno. Ismaaciil Cabdulla Soomane oo ka mid ah guddiga safarada u xil saartay dabagalka arrimahan in ay dawladda Koonfur Afrika kala hadlaan ayaa sheegay in wada hadal u socdo laamaha ammaanka iyo dawladda Koonfur Afrika sidii looga hortagi kara in rabshado kale ay halkaasi ka dhacaan isla markaana loo badbaadin lahaa hantida ganacsatada Soomaaliyeed. sabti iyo xado fasaxa haddana la galay Britain waxaa balan ayaa jirta wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda booliska Koonfur Afrika iyo safarada labadana waxaa laga hadlayaa runtii wixii dhacay wixii sababay iyo wax inta ila agtahay khasaarada dhacday iyo hadda waxa la qaban karo iyo xalka waxa uu yahay iyo badbaadada sidii aan gacan ugu wada geysan karno ayaa runtii muxuu ahay haddana loo balansan yahay. arrintaasna waa socotaa waxaana filaynaa si wada jir ah labada dawladood iyo community-ga iyo ummadaha kaleba inay ugu soo bixi doonaan si wada jir ah arrintaas xal laga wada gaaray haddii Ilaahay. Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe warbaahinta qaranka Soomaaliya Johannesburg Koonfur Afrika.